عند عاشقه waxaad ku soo dhawaataan qaybtii koobaad ee sheekadii halkudhigeedu ahaa dhimasho ayaan ka xigaa in aan dib u soo jeclaado. sheekadu waa qiso jacayl oo dhaab ah ku dhacday lamaana Soomaaliyeed. qisadan ayaa ah mid xabaarsan murugo iyo tiira iyo xanuun badan. أنسة وأقبر كسر جيدة قويس لغان هانتي نمعو إله كمانيستي أنسة والد كيدا وحو حامد أدك مركزتنا كونترول حالة أنسة والد كانسة وحي جعليين إن قبلو ذا يحير سركة دارتو لنك وحبراشرة سيدا والدين تكلا يجعليين إن أبدكوذو نقضوكو وحبرتا مستقبل وعنا له أنسة وأقبر قرحون وأقبر دير وإلكسل من أو قرحون له دولة عديس كيدا أيها رجع انت بدن سامية أنسة وحي وحكا برنجرتي اسكول كإمام الشافعي أي مقالة مقدشو وحي حيد قبر انت بدن لصودونه قاري لغسو قادو وحا سودوني جري آبهيدا وحي حيد قبر لذن دبنا كموقن اسكان فرح سنحيدا ولبا أنسة برغا يدقيهين waxaa ku batay in habeen kasta uu soo dhaco tuug. markii dambe waxay reerkeeda go'aansadeen in guriga loo yeelo waardiyo si looga nabad galo tuuga caadaystay in habeen kasta dhac u geysto xaafadooda. waxaana waardiyo looga dhigay wiil mardhow laga keenay baadiyaha xamar ku teesan. wiilka ayaa lagu magacaabi jiray Ridwaan. Anisa waxay ka heshay wiilkii waardiyaha ahaa waxayna u qaaday jacayl. وانتبه جعيل باي هلينوي هيه هل استفركي وحلبوله هيو خارسه وانتبه جعيل باي هلينوي هيه هل استفركي وحلبوله هيو خارسه habeen kasta waardiyaha waxay u samayn jirtay casho aad u macaan dhadhankeedana sarreeyo. Anisa looma ogola inay jikada gasho. wax allaale waxay u baahato oo cunto ah waxaa u soo diyaariya booyaasada ama shaqaalaha guriga gabadha ka ah. Anisa waxay ku andacootay in cuntada ay kariso gabadha booyaasada ay ka jeceshahay midda ayada gacanteeda ku karsato. waalidka Anisa markasta waxa uu burin jiray oo guriga ka ceyri jiray booyaasad kasta oo cunto fiican aan u karin Anisa. laakiin Anisa jikada waxay u gashaa sidii ay u kasban lahayd wiilka waardiyaha ah. uma quurto inuu cuno wax ay karisay gabar shaqaalaha ah ama booyaasada guriga. waalidka Anisa wuxuu ogaaday in gabadhooda ay xiriir la leedahay waardiyaha guriga. Ridwaan waxa uu ku qanacsanaa Aniso maadaama ay tahay gabar wanaagsan noloshiisana isbedel ku keentay. xitaa Anisa waxay siin jirtay biil u gaar ah oo ka duwan kan ay bixiyaan waalidkeeda. Ridwaan uma muuqdo markani nin waardiye ah marka la fiiriyo libiskiisa iyo muuqaal ahaantiisa. waalidka Anisa waxay ku baraarugeen in gabadhooda xiriir aan caadi ahayn la leedahay waardiyaha. Anisa waxaa lagula taliyey inay ka harto ninka waardiyaha ah haddii ay u baahato ninna la siinayo nin ayada ku leebal ah ama ku nolol ah. Anisa hadalka waalidka nagjalaq umaysan siinin mana ay tixgelin waayo waalidka wuxuu caqabad ku noqday jaceylkeeda. waxayna yasmiyo quusi ka dhigteen ninka ayada ay jeceshahay. xiriirkoodu wuxuu sii ahaa mid qarsoodi ah. laakiin Anisa waxaa ku batay fikirkii ayuu qabtay wiilkii Ridwaan ahaa. way yara xaatooday jirkeeda ayaa sira dhimay. waalidka Anisa wuxuu go'aansaday in waardiyaha guriga laga buriyo si gabadhooda uga nabad gasho wiilkani waardiyaha ah. Ridwaan waxaa laga ceyriyay gurigii uu waardiyaha ka ahaa. Anisa kuma farxin tilaabada ay qaadeen waalidkeeda. waxayna tiri haddii Ridwaan guriga laga rafdeeyo anigana waan isaga tagayaa gurigani. talada guriga markasta waalidka ayaa iska leh laakiin aniga wax tixgelin ma lihi. qalbigaaga waxa haga dareenkaaga iyo hadalkeeda sii raaxisay. Anisa si qarsoodi ah ayay lacag u siin jirtay wiilka Ridwaan ah. waxayna tiri iibso moobeel ha ka walwali lacagta aniga ayaa kuugu shubaya markasta igu soo wargeli xaaladaada.
ridwaan markii uu soo iibsaday moobeel markiiba moobilka ayaa laga dhacay sidoo kale lacaga uu haystay uu aruursanayay muddo dheer ayaa laga dhacay noloshii ridwaan waxa ay noqotay niyad jab haddaba la soco qaybta labaad والراقية حنونك والراقية